Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan saaxiibayaal, waxaad ku soo dhawaataan barta aan ku leenahay YouTube-ka xulka wararka. Qodobada aynu kula wadaagi doono waxaa ka qayb noqon doona shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad galay. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland, oo idin u jeediyay hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Laftagareyn. Ajandaha shirka golaha wadatashiga qaran ay ku kala qaybsameen madaxda shirkaasi ka qayb gashay Ra'iisul Wasaare Roble oo lagu wareejiyay awoodda amniga guud ee dalka, Farmajo oo tallaabo ka dhan ah qaadaya Ra'iisul Wasaare Roble, hogaamiyaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle oo meel uga soo wada horjeestay Ra'iisul Wasaare Roble. Halkii ayuu ku dambeeyay shirka uu ku baaqay madaxweynaha muddaxiliidkiisa dhammaaday ee Farmajo, midowga musharaxiinta, wakiilada beesha caalamka, dhinacyada tabashooyinka qaba iyo bulshada rayidka oo ka qaybgalaya shirka golaha wadatashiga qaran. xogaha shirkaasi ayaa idinkula wadaagi doonaa saaxiibayaal. Haddii aad tahay markaa kugu horeysa aad soo booqatay channelkeena, subscribe inoo saar, like garay, asxaabtaadna la wadaag, qaybta commentigan aragtida noogu reeb. waad ku mahadsan tahay. aynu ku bilowno. waxaa shalay Isniina ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran oo hormuud u yahay Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble, ayna ka qayb galayeen madaxda dowlad goboleedyada shanta ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Puntland iyo duqa Muqdisho Cumar Filish. shirkaasi oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa isla gartay jadwaleynta shirka ka furmay xerada Afisoni eena madaxda shirkaasi ka qaybgalaysa ay isla garteen in uu shirkaasi noqdo mid lagu turxaan bixinayo hakadiyada ku yimid doorashooyinka iyo walaaca laga muujinayo habka ay u socdaan doorashooyinka iyo xalinta doorashooyinkii ka dhacay deegaanada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo caasimadda Muqdisho. waxaa magaalada Muqdisho shirkaasi ka furay Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble, kaasi oo horey u iclaamiyay Ra'iisul Wasaaraha ayna hor yaalaan arrimo xasaasi ah. Dabaaqadii bishii Diseembar ee lasoo dhaafay ayuu u waqtiyeysnaa shirka, gaar ahaan 27kii bishan Diseembar. hase yeeshee waxa uu ku baaqday sabab aanan si rasmi ah loogu sheegin, balse la fahmi kara ay ahayd in waxyaabo xiriirka khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyaan madaxweynaha muddaxiliidkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmajo, Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda, kaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada. sidoo kalena khilaafka u dhexeeya labadaasi mas'uul ayaa waxaa ku kala qaybsamay madaxda dowlad goboleedyada ee ugu horeeya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareyn oo qaadacay shirka uu iclaamiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, uuna sheegay inuu ka qayb galayo shirka uu iclaamiyay madaxweynaha muddaxiliidkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmajo. khilaafka u dhexeeya labada mas'uul ayaa cirka isku sii shareeraya marba marka ka dambeysa, iyadoona walaac horle ay ka muujinayaan daneeyayaasha siyaasadeed ee Soomaaliya, haba u horeeyaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha muddaxiliidkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmajo, taasi oo ku tilmaameen 27kii Diseembar falka uu qaaday mid aanan looga baran dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo dowladnimada, taasi oo ku sheegeen in uu sameeyay isku day afgembi oo lagu damacsanaa in lagu qaarijiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul Wasaaraha oo shir ku qabtay xafiiskiisa ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha muddaxiliidkiisa dhammaaday oo duulaan qaawan ku soo qaaday xafiiska iyo xukuumadda ay ku shaqeeyaan, sidoo kalena ciidamo ka amar qaata madaxweynaha muddaxiliidkiisa dhammaaday oo soo dhooway xafiiska Ra'iisul Wasaare. ugu dambeyn ay ku kala jabeen saraakiisha ciidamada dowladda iyo taliyayaasha qeybahooda kala duwan. inkastoo ay jiraan qodobo aanan war-saxaafadeedkada lagu qanin warbaahinada laga sheegin, kuwaasi oo mararka qaar ila xog ogaal ay noo soo gudbinayaan iyo kursi qof gaar ah la doonayo ama loo diidan yahay, ayaa haddana si guud halka kusoo koobaya dhowr qodob oo u badan arrimaha doorashooyinka oo horyaala shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad galay, waxaana qaarkood ay muuqdaan caqabado waaweyn oo la isweydiinayo sida loogu gudbi karo. kulanka uu ka furmay Muqdisho waxaa isugu yimaaday Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareyn oo markii hore qaadacay shirka, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish. shirkaasi ayaa maalintii labaad ay uga wada hadli doonaan ajandayaasha ugu horeeya jadwaleynta doorashooyinka dalka. sidoo kalena afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in ay shirkaasi ay ka wada hadli doonaan madaxda golaha wadatashiga qaran sidii loo jadwaleyn lahaa doorashooyinka iyo sidii loo xalin lahaa tabashooyinka ka jira qaar ka mid ah kuraasta loo boobay xildhibaano oo daneynayo madaxweynaha muddaxiliidkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmajo oo ugu horeeyo taliyaha ku-meel gaarka ee nabad sugidda Yaasiin Faray
oo ku soo baxay kursiga hob 067 oo muran badan hareeyay kadibna guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay ansixiyeen kursigaasi inuu ku soo baxay kusimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Yaasiin Faray. dadaalo badan oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka qaaday arrimaha doorashooyinka ayaa wuxuu kala eriyay qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal, heer dowlad goboleed iyo kuwa xalinta khilaafaadka kuwa kalena u magacaabay, taasi oo saameyn xooggan ku yeelatay damaca uu waday madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmajo. sidoo kale shirka maanta galay maalintiisa labaad una socda madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa waxay ku jaangoyn doonaan habraacyada doorashada ayaa u socota si aanan jadwaleysaneyn, waxaana soo badanaya cabashooyinka la xiriira habraacyada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa la soo gabagabeeyay goor sii horeysa halka golaha shacabka ay weli socoto, inkastoo ay jiraan dhaliilo iyo cabashooyin hareeye hanaanka uu kormeerka ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. doodo badan ayaa ka timid habraacyada doorashada kadib markii kuraasta qaarkood ay yimid muran iyo isqaqabsi. shirka golaha wadatashiga qaran oo sababihii loogu baahday ay ka mid tahay arrintaasi lafteeda ayaa la filayaa in xal looga gaaro habraac sax ah oo lagu marayo doorashooyinka dalka. waxaa tusaale weyn iyo dhaliil weyn ee ka jirta habka xulista ergada iyo xaqiijinta tartan daahfuran oo qof kasta daneynayo inuu musharax noqon karo, taasi oo aanan meel badan ka dhaqan gelin haba ugu horeysay deegaanada maamulka Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo kuraas qaar loo boobay dad gaar ah. caqabadaha ay tahay in xalka loo helo ee dhinacyada habraacyada waxaa ka mid ah soo xulista ergooyinka iyo musharaxiinta kuraasta golaha shacabka u tartamaysa. guddiga doorashooyinka ayaa marar badan lagu cambaaray inay heer mareen habraacyadii loo dejiyay, taasina oo tallaab cad ka qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. qodobka labaad ee madaxda golaha wadatashiga qaran ay ku yeelanayaan ayaa wuxuu yahay kaalinta guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa tan iyo markii doorashada bilaabatay u muuqday kuwo aysan howshooda kala cadeen, isla markaasina aanan la ogeyn kaalmaha ay ka leeyihiin doorashooyinka dalka. waxaa muuqatay in guddiyada heer dowlad goboleed ay lahaayeen awoodii intooda badan, iyaguna ahaayeen kuwa go-aanka ka gaaraya natiijada kama dambeysta ee kuraasta la doortay. guddiyada maamul goboleedyada u qaabilsan doorashada ayaa lagu eedeeyay inay la wareegeen awoodii guddiga heer federaal ee loo egmaday. madaxda shirka u fadhiya ayaa hadda hortaalla inay go-aamiyaan kaalmaha guddiyada iyo shaqooyinka loo xilsaaray labadaasi guddi heer federaal iyo heer dowlad goboleed. waxaa kaloo xal u baahan khilaafka waayadii dambe ka jira guddiyada doorashooyinka oo sheegay inay xilalka ka qaadeen guddoomiyahooda, inkastoo isaguna uu sheegay inuu weli shaqeynaya uu yahay guddoomiyaha saxda ee guddiga doorashooyinka heer federaal. guddiga muranka ugu badan uu ka taagan yahay waa kan xalinta khilaafaadka uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka saaray ilaa iyo 11 xubnood. sidoo kalena shirka ayaa loo fadhiyaa in xal looga gaaro kuraas ka tirsan golaha shacabka oo doorashadooda la isku qabsaday. qodobka saddexaad ee shirka golaha wadatashiga qaran lagu faaqidi doona ayaa wuxuu ka mid yahay jadwalka doorashooyinka. guddiga doorashooyinka ayaa 27 bishii May sanadkii hore soo saaray jadwal lagu talagalay doorashada oo qabsoomi weyday. doorashadana oo waqti dheer ay soo jiitamaysa ayaa marba caqabad hor leh la kulmaysa. tan ayaa ka mid ah howlaha horyaala shirka shalay ka furmay magaalada Muqdisho ee beesha caalamka taageertay. sidoo kalena maanta ayaa lagu wadaa inay qayb ka noqdaan qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka, midowga musharaxiinta mucaaradka iyo bulshada rayidka. marka laga soo tago doorashada golaha shacabka oo caqabad badan haragaadiyeen, ilaa iyo hadda lama oga xilliga ay dhacayso doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliya. shirkani ayaa shalay ka qaybgalayaashu fikrado isku weydaarsan doonaan, balse ugu dambeyn waxaa laga rajeyn doonaa qaabka loo qabanayo jadwalka la cayimay iyo doorashooyinka waqtiga la soo gabagabeynayo. golaha laftooda ayaa shirkooda ugu dambeeyay ku sheegay in muddo 60 maalmood gudahooda lagu soo gabagabeynayo doorashada, taasi oo aanan fulin iyadoo ilaa iyo xitaa aan la dooran kala bar xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka. qodobka saddexaad ee aad isugu hayaan ayaa wuxuu ka mid yahay labada deegaan doorasho. heshiiska September 2020 waxaa lagu heshiiyay in doorashada lagu qabto laba deegaan doorasho dowlad goboleed kasta, balse ilaa iyo hadda ma jirto hal meel oo doorashadu ka dhacday oo aanan ahayn caasimada dowlad goboleedyada. waxaa intaasi ku sii daray inta badan magaalooyinka kaalmaha labaad ku jira inay taagan yihiin qalalaaso amni daro ama caqabad kale oo siyaasadeed. tusaale ahaan magaalada Boosaaso oo loo aastay inay doorashada ka dhacdo ayaa waxaa ka dhacay dagaalo badan oo ay ku dhinteen dad badan, kuwaasi oo kuwa kalena ay ku barakaceen. sidoo kale magaalada Beledweyne ayaa ka socda dagaal salka ku haya diidmo la xiriirta maamulka Hirshabelle. magaalada Garbaharey ayaanan weli xal rasmi ah laga gaarin iyadoo ay ka taliyaan maamul aanan hoos tagin
kan Jubbaland isla markaana gudiyada doorashooyinka qabalna ay ku sugan yihiin Kismaayo qof kamid ah uusan tagin magaaladaasi. Waxaa xusid mudan in shirka May ee madasha la isku raacay goobo lagu xalinayo khilaafaadka gobolka Gado balse wax ka ful aysan jirin qodobadaasi ilaa iyo hadda. Si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay wax noqon doonaan iyadoona dadka faaqida arrimaha siyaasadda ay isha ku hayaan wakiilada beesha caalamka. Waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkeena. Haddii aad tahay markaa ku wareysaad soo booqatay channelkeena subscribe inoo saar like garay asxaabtaadna la wadaag qaybta commentiga aragtida.